habeen wanaagsan daawadayaal taliska ciidanka booliska gobolka Banaadir oo hoggaan u yahay Macalin Mahdi ayaa 2 saacadood u qabtay madaxweynaha hore Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Shariif Sheikh Axmed. tii labaad waa dhiman tahay waa minraayo haddaan u soconaa insha Allah ta'ala waa la soo gabagabayn doonaa. dhanka Shariif Sheikh Axmed jawaab culus ayaa kasoo yeertay maxay tahay jawaabtaasi si la mid ah madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa 3 shuruudood ku xiray Xasan Sheikh Maxamuud uu la dhiibay odayaasha dhaqanka maxay tahay 3daas shuruudood caawa guriga uu ka dangayahay Mirinaayo xaaladdu way adag tahay Shariif Sheikh Axmed 4 gaar ciidamo ay uga sugan dadka waqooyiga magaalada Muqdisho ku noolna beerka ay ku hayaan guud ahaan waa sidee xaaladda magaalada Muqdisho caawa soo dhawaada saaxiibayaal qodobadaas ayaan barnaamij ku faahfaahin doonaa muuqaalka sheer galay oo meel fog gaarsiin taliska ciidanka booliska gobolka Banaadir Macalin Mahdi ayaa galabtay in aan la gaarin caawa 2 saac ayaan gacanta ku soo dhigin doonaa hadii uu soo dhiibin fariin noocaas oo diray madaxweynaha hore Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Shariif Sheikh Axmed. Shariif Sheikh Axmed oo isla markii uu soo jawaabay ayaa wuxuu yiri taasi ma suur gali doonto intii naf ay nagu jirtana waa dagaalami doonaa ciyaalkan iska fudud magaalada Muqdisho waxaan ka soo marnay war kama hayaan waana u dagaalami doonaa in lagu ciyaarana dooni mayno. madaxweynaha iyo askarta hadii u maleyn ana cabsanayno carareen anaga ma carareen dad cararna waa ka weyn kale madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa fariin 3 qodob ka kooban u dhiibay odayaasha dhaqanka caawina fariintaas u faray Shariif Sheikh Axmed fariintaasna waxay ka koobneed 1 in Shariif Sheikh Axmed hubka ciidanka uu soo wareejiyo 2 in Shariif Sheikh Axmed mar dambe laga maqli karin abaabul banaanbaxyo xalamida 3 Shariif Sheikh Axmed inuu ka guuro guriga oo Mirinaayo ka degay aluna xariistay ee Cali Mahdi 3 shuruudoodna Shariif Sheikh Axmed waa iska diiday waa midaan dhici doonin oo yiri odayaashii ugaasiyada suldaamadii guud ahaanba odayaashii ayagoon wax faahfaahin ka bixin ay guriga iskaga soo hooleeleen xaaladda magaalada Muqdisho caawa way adag tahay Macalin Mahdi fariintii oo diray ilaa hadda kama jawaabin xilli dambe ayaa la marayaa oo Shariif Sheikh Axmed soo ma qaban gacanta kuma dhigin Shariif difaaciisa ayuu ku jiraa 3 shuruudood oo Xasan Sheikh Maxamuud oo dalbadana ma yeelin xaaladdu madax ay iskula jirtaa Muqdisho waqooyi Muqdisho jawigeedu ma xasiloona caawa wixii ka soo kordhay haduu Ilaahay yiraahdo berito subaxdii ayaa idin la soo socodsiin doonaa barnaamijkii sheer garay oo meel fog gaarsiin soo dhawaada saaxiibayaal.